waxaa galabta garoonka kubadda cagta ee Wami Stadium lagu soo gabagabeeyay tartanka xiisaha lahaa ee bisha barakeysan ee Ramadaan ka soconaya halkaasi ka uu dhigay madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Sheekh Axmed Maxamed Islaam Sheekh Axmed Madoobe. daawashada ciyaartan oo xiiso gaar ah lahayd waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Ibrahim Yuusuf Maxamed Jamandile, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada Axmed Cabdiqaadir Cali, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Jubbada Hoose, gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose, gudoomiye ku-xigeenka saddexda gobol ee sportska ahna gudoomiyaha Olombikada gobolka Jubbada Hoose iyo bahweyn kale oo dhanka sportska ah. ciyaartan waxay u dhaxaysay laba kooxood oo kala ah Farjano iyo waliba Suuqire. labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan oo qancisay dhammaan taageerayaasha labada dhinac iyo waliba dadkii kale ee u soo daawashatay ciyaartan. qaybtii hore ee ciyaartan waxay ku soo ilaatay gool la'aan, waxaana qaybtii dambe markii la isku soo laabtay labada kooxood ayaa sameynayay fursado ay ku doonayaan inay goolal ku keensadaan, hase haatee waxaa markaasi labada kooxoodba ay iska qasaariyeen fursado aad muhiim ah oo goolo loo filan karay. qaybtii dambe ee ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbardhac gool la'aan ah, balse labada dhinac ayaa sameynaya fursado dhowr ah walow aysan suurtagelin in wax goolal ah ay iska dhaliyaan labada kooxood. ciyaarta ayaa markay ku soo idlaatay 90kii daqiiqo ee loogu talagalay waxaa la guda galay gool kulaad ama barigoore. labada kooxood oo iyagu dhiirigelin ka haystay kooxihii ay ka soo baxeen tartankan intii muddada uu soconayay, isla markaana ay ku soo kala baxeen natiijo goolal iyo waliba kuba rigoore caynkan oo kale ah, ayaa gabagabadii waxaa u suurtagashay naadiga Farjano in ay rigoorayaal ku qaadaan, halka naadiga Suuqire afartii rigoore ay lahayd ay laba ka mid ah iska qasaarisay. rigooradii ugu dambeysay oo naadiga Farjano markay ay tuureen goolkaasna ay dhaliyeen ayaa waxa ay ku dabaaldegeen gudaha garoonka Wami Stadium. sidoo kale maalinimadii shalay waxaa isaguna tartan caynkan oo kale ah oo ka soconayay Salaxa Calanley lagu soo gabagabeeyay halkaasi, iyadoona ay ku guuleysatay naadi ka socota xaafadda Calanley oo la yiraahdo Masha Allah, waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyay koob aad u qiimo badan, iyadoona dhanka kale daawashada ciyaartaasi ay ahayd mid aad u xiiso badan. gabagabadii waxaa wareysi gaarsiiyay TV-ga Somali Cable gudoomiye ku-xigeenka saddexda gobol ee sportska ahna gudoomiyaha Olombikada gobolka Jubbada Hoose Aadan Cabdi Qayliye Aadan Sanka, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Jubbada Hoose Cabdullaahi Ducaale Big kuba oo faahfaahinayo cidda ka caawisay tartankan iyo waliba hanaankii uu tartankan u soo socday muddadii dheereed uu tartanka soo soconayay. bismillaahi raxmaani raxiim. anigu waa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose. waxaan idin sheegayaa maanta waxaan halkan ku soo gabagabeynay tartankii socday ee loo qabtay 12 kooxood ee heerka labaad ah ayaa lagu qabtay. koobkaasna wuxuu ahaa koobkii Ramadaanka oo la qabtay ayaa maanta waxaan soo gabagabeynay finaale. laba kooxood ayaa isku soo haray. labada kooxood isku soo haray waxay ahaayeen labada xaafadood oo ka mid ah degmada Kismaayo gudaheeda, Suuqyare iyo xaafadda Farjano. koobkii waxaa maanta qaaday xaafadda Farjano ayaa qaaday koobka asaga ahaa. wuxuuna ku dhamaaday si nabadgelyo ah iyo si wanaagsan buu ku dhacay. ilaahay ma hadii koobkii waxaan soo gabagabeynay bisha barakeysan walaanka uu madaxweynaha Jubbaland inoo magacaabay inuu koobkaasi balan qaaday inuu dhigo. wuxuuna ku soo dhamaaday si nabadgelyo ah. koobkaasi oo ahaa koob bil barakeysan ah oo 12 kooxood oo heerka labaad ah waana soo gabagabeynay. waxaan rajaynaynaa insha Allah xafladaha iyo casuumaadaha iyo maxaloolinta balan qaadyada iyo koobyada abaalmarintuba waxay dhacayaan insha Allah jimcaha inagu soo aadan kankiisa kale. sidaan rajaynaynaa insha Allah waxaana sameyn doonaa insha Allah waxaan ka dhicin hadda ka hor wixii aan qaban jirnay, kaasi oo aan wax kaga bedelayno barnaamijka dadalgelinta sportska dhammaantiisa. hadduu noqon lahaa Olombikada iyo xiriirka kubadda cagta, hadduu noqon lahaa iyo kan kale ee saddexda gobolba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka soo qaadno 12 kooxoodba kuwa sharaf leh oo qiimo badan waana ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah. maalinta Jimcada ayaa lagu wadaa in xarunta madaxtooyada ee maamulka Jubbaland lagu guddoonsiiyo koobabkii iyo waliba hadiyadihii aadka u qiimaha badnaa ee kooxahani ay ku guuleysteen, waxaana abaalmarinadaasi bixin doona madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Sheekh Axmed Maxamed Islaam Sheekh Axmed Madoobe, sida ay inoo sheegeen xubnaha sare ee xiriirka kubadda cagta ee degmada iyo waliba gobolka. Idilaadan Maxamed Degene, telefishinka Somali Cable, magaalada Kismaayo.